halkani waa alxaqiiqa. warka xiisihiisiyo xaja ka qarsooniyo halkaa dahsoona alxaqiiqa weeyaan xogtu meeshaytaa. raalliga ahaada idinka oo mashquula oo dee shaqo iyo waxaasi waa tan laynagu itixaamay shaqee ku mashquula ayaan kilibadan idin duubayaa, laakiin markaad faraaqada leedihiin iska dhegaysta. Jonathan Star waa nin yahuudiya xaqiiq weeye, eeg hadda xaqaa'iq baan anigu maanta rabaa inaan wada taabto. Jonathan Star ninka la yidhaahdee abaarsa tax sameeyey ee lacagtiisa ku sameeyey waa yahuudi. wuxuu ku dhashay maraykan buu deganaa, maraykan buu ka shaqaysanayey. Wall Street ayuu ka shaqaysanayey oo uu malaayiin lacaga ka sameeyey, oo wuxuu ahaa dadka agentska ahaa Wall Street maaragtay dadka u sameynaya lacagta, laakiin commission ka qaadanayay. lacag malaayiina ayuu sameeyey isagoo nin yara, dabeedna wuxuu qaatay early retirement. wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan caawiyo xagga iskuullada, inaan ka caawiyo dadka aanay ilaahay jaanis siinin. wuxuu la kulmay nin habaryartii qabo oo Soomaaliya oo reer Sheekh Saxaaqa oo habar Yoonisa. iga raalli ahaada haddaan qabiil ku hadla maanta kelmad marmar dee li tacaarufu baa loo sheegaa baashe maaha wax xumaan aan qof uga jeedo oo maaragtay ku ceebeynaya cid amaan cid ku daaraya amaan cid ku durayo. wanaag baan u sameeyey dee ninka aan sheegayeen leeyahay waa nin habar Yoonisa. wuxuu qabay gabadh yahuudiyada oo Jonathan Star habaryartii ah. Looked and saw this is my best chance probably to do something that would be really special. This was going to be all the pieces were aligned. I have an uncle who's a Somali uncle through marriage. I have Somali cousins. I was connected there. I had some money. I could donate the first big chunk to get everything going. I could move there, and I did. I lived at the school and was the headmaster of the school until not that long ago. I still go back often and make sure everything's going the direction it should. This was just a chance to do something that I thought would really be impactful. ninkii buu la tashado wuxuu yidhi war waxaan doonayaa inaan iskuul Afrika ka sameeye xageed igula talin lahayd. iga raalli ahaada waan yara xabeebsanahayne. wuxuu ku yidhi warniyo waddankayagii miskiinka ahaa ee faqiirka ahaa ee aanay ciidana ictiraafin ee la wada ignoor gareeyey laga kala yaacay ee tawxiidda quraanka ku samaystay laa ilaaha illa allah calankiisa ku samaystay ha ka baqina tag. nin buu ku xidhay mar raba inaan sheego waxyaabo badan waayo waxa laga yaabaa inay xanaf samayso. nin buu ku xidhay waddankii markaa joogay oo isaguna berigii hore gabadh qaadi jiray ajnabiyada. ninkaa u tag buu yidhi ninkaasaa ku caawinne. adigu labadoodii dhibaata ku kala dhex dhacday. Jonathan Star waan bartay anigu, waananu isnaqaanaa, waana nin aanu aad u saaxiibnahay. wuxuu noogu yimi Minnesota isagoo carruurta u doonaya meel muddo imika laga joogo dhowr iyo 10 sano ayuu noogu yimi. gabadh carruurteedu ay ku jirto iskuulka ama ay soo galeen iskuulka oo 2 sannadood dhiganayeen ayaa noo keentay oo halkan nala degan. waxay tiri ninkaas ay noo imanayee wuu cabanayaa ee bal caawiya wixii aad la qaban kartaan. halkaan isku barannay baan idiin sheegayaa Jonathan Star markii uu noo yimi wuxuu yidhi iskuulkii waa la iga duminaya, waa la iga xumaynaya, waa la iga qadaaya, waa la iga qaadaya. dad baa igu shidaya. dadkii ku shidayey oo iyagu markaa u jeeday benefit inay ka helaan iyagu oo isagana ka afqabtaan. carruurtii iyo iskuulkiina wuu isku dubadhacay oo waa kan dee u raadinaya scholarshipyo dibadda ah. iskuulkii wuu isku dubadhacay. waxaanan idinka bilaabay inaan idiin sheego Jonathan Star isagoo yahuudi ah oo aan ahayn nin muslin ah haddana wuxuu ka dhisay iskuulka dhexdiisii masaajid. kamuu dhisin kiniisad, kamuu dhisin maxaa la yidhaahdaa toodan yahuudda meel ay carruurta diinta yahuudda lagu baro kamuu dhisin. masaajid buu ka dhisay oo weliba imaam leh oo masaajid ah lagu tukado 5 salaadoodba wiil iyo gabadhba ay ku tukadaan. wuxuu ka dhex dhisay iskuulka abaarsa tech dhexdiisa. ninkii tegey baa tegey, waan soo arkay anigu waanan tegey. ninkii tegey baa tegey oo arkay oo garanaya. ninkii aan tegin Cabdimaalig oo kale oo meesha teginina dee afka ha ka dhurmo. in laga qabtana waa waajib oo laga qabto waa waajib. Jonathan Star wuxuu yidhi dir dhibaan u raraya iskuulka. meel xun baa la dejiyey abaarso waa abaar waa meel abaara biyo male
arabsiyo wax yar u jirtaana biyay leedahay maxaa arabsiya la ii geyn weeye buuri alaa xaal siday u dhacdayba halkaa maaha mushkiladda aan ka hadlaya waa mushkilad dhamaatay taasi oo imika dee abaarsa tag kama guuraya abaarso waanu leeyahay biyooda riig iyo waxbaa loo qoday baan filayaa imika in muddo amaan arag oo maan tegin waxaan see ka hadlayaa waxa weeye colaadan lagu shidayo ee la leeyahay iskuulku waa iskuul gaalaynaya cid anigu maalintaa haddaan u arkayo Jonathan Star anigoo khibrad u leh wixii aabbahay soo maray khibrad u leh oo aabbahay waa ninkii loogu heesay la yidhi Michael waa Kristaan macna kuuma lehe Ahmed baa Muslim ee maqlayaa wadani aabbahay wuxuu yidhi kitaab baan gacanta saaraya weligii ma sinaysan buu yidhi bal ha soo baxo kuwa ile waa gaalo NUF na leh NUF waa gaalo kuwa leh ha soo baxaano kitaab gacanta ha saaraan inaan sinaysan sida uma eegin buu weligii naaga ajnabiya halka hooyaday baan u guursaday aabbahay oo 7 caruur u dhashay alxamdulillah waxaan idin soo celinayaa Jonathan Star anigu Jonathan Star maalinta uu noo yimi wuxuu yidhi dir dhabaan u raraya potentially waxaan u arkayay inuu samayn karo khasaarahaasi soo gaadhayna waa ka kacab oranayaa buu iskuul baan doonayaa inaan sameeyo idin sameeyay ma caawinaysaan halkii baan ka bilaabay inaan caawiyo inaan aanu markaa wax isu nahay oo isnaqaanay oo isku wanaagsanayn oo ilaahay barakee oo markaa wasiiradii tacliinta ahayd waa Samsam Cabdi aadan oo markaa wasiiradii tacliinta ahayd baan ula hadlay waxaan ku yiri walaal ninkaas soo dhaweey waxay tiri ninkaas uu nacaaya sharaydku wax ku qoraa Jonathan baan la hadlo waxaan ku yiri warday sharaydka ka daa waxaan ku qoraysaa anu ma qoro buu yiri dad aniga iga dhiganaya oo magacayga isticmaalaya qora oo la isku diray sidan imika la isugu diray Somaliland iyo iskuulka ayaa Jonathan iyo dawladda la isku diray iska dhaaf taas ana igu soo qaadina please oo ha iga qabsanina waayo wax dhamaaday weeyaan oo arinteedu aanu maslaxadeedii dhamaynay taas wala igu dirayaa buu yiri anigu ma qoro waxna ma qoro jaraydkana ma aqaanaba meel ay ku jiraan laakiin dad baa magacayga isticmaalaya oo ka dhigaya inaan anigu dawladda caayayo walaal arinta baaro haddii aanu isagu qorin kaasi caawi baa ku way caawisay inantii Allah khayr ha siiye waxaana loo sameeyay markaa Jonathan muu lahayn deganaansho wadanka waxa loo sameeyay iqaamad waxaan la yiraahdo ama residency ayaa loo sameeyay isaga iyo iskuulka dadkii ka dhigaya macallimiinta ahaaba waa ku guuleysanay inaanu isu geyno isaga iyo wasaaradii tacliinta oo nu heshiisiino oo ay wasaaradii tacliintu wax la qabato oo la ilaaliyo oo la hagaajiyo oo dabeedna dadkii meesha caruurtoodu ay dhiganayeen oo Maxamed Xaashi Cilmi uu kamid yahay ayaa wax la qabtay oo gacan ku dhigay guddi buu leeyahay iskuulku reer Somaliland war waxaan anigu ku talinayaa waxa weeye kan waalan ee aan isagoon waxba baarin madaxweynihii iyo la tirsanaya iyo dadkeenii madaxda ah ee waxaan jiri sheegaya iskuulka muu tagin iskuulka ardayda joogta ee dhigata xijaab xidhan gabdhuhu wiilasha dhigta salaadu ma dhaafto diintii baa la baraa alxamdulillah tacliintii kalena waa la baraayo de waa kuwa adduunka la tartamaya kuwii ka soo baxay adduunka la tartamaya weel baan ka shaqeeyaan maanta qaarkood alxamdulillah walaalayaal yaan isha qore inoo bidhaantay la inaga burin oo la inaga dumin baleeg hadda ninkan iyadoo 2021 marayso ayuu iskuul gabdhaha oo qura u khaasa sameeyay hadduu wax xumaynayo muu ku education sameeyo isku daro hadduu wax xumaynayo wadaadadii wadanka joogtay way joogaan dir iyo kamid yihiin may ku kacaan way arkaan miyay qarsoomaysaa wax xumaan u sameynaya ee wadankeena uu ka sameynaya ma qarsoomayso wadin diiniyana ma aha isagu tiisi baan u haysanin oo fidinaynin oo wadanin oo garanayninba muxuu ka gaaleyn dadkeenu ku faraxsan yahay dalkeenu ku faraxsan yahay inuu wax ka qabtay waa mabsuud aynu la mabsuud aynu wax la qabanno waxba naga xumayn maayo caruurteena lama gaaleyn karo taa intaas ku soo xidhay klibkan uu iga dheeraaday klib kale aan idinka sheekeynaya oo aniga